waa tahay soo dhawaada daawadayaal halkaad naga daawanaysaan waa diiwaanka wararka madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen oo lagu eedeeyay in uu la shaqeeyo kooxda argagixisada Al-Shabaab sidaas waxaa yiri sargaal hore oo ka tirsanaa ciidanka deegaanka maamul goboleedka Hirshabelle waxa uu leeyahay waxaa lagu qabsaday maxad u dishay sargaal sare oo ka tirsanaa kooxda argagixisada Al-Shabaab oo ay dowladdu markii ay soo dileen sargaalkaasi dagaalyahanadiisaba hadiyad ay siisay intaana ku fasaxin muuqaalkiisa iyo eedeynta loo jeediyay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle waxaan ka codsanayaa inaad YouTube-ka subscribe aad saarato sidoo kalena gambaleelkan aad furato saad u hesho wararka iyo warbixinada aan halkaan ku baahino waxa iga xasuusina inaad subscribe saarato gambaleelkan aad furato si aad u hesho wararka iyo warbixinada aan halkaan ku baahino laagtuna waa inoo muhiim oo muuqaalka iyo meel fog inuu gaarsiinaysa mahadsanidin balila daawo codkan waa sargaal hore oo ka tirsanaa ciidanka deegaanka gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan dowlad goboleedka Hirshabelle waxa uu leeyahay Cali Guudlaawe ayaa iigu hanjabay maxad u dishay sargaal ka tirsan kooxda argagixisada Al-Shabaab waa arin la yaab leh balila daawo wax yar haddii madaxweyne Cali Guudlaawe joogo oo dawladda Hirshabelle ay u dhisantahay in shabaab inay baxaan laga yaabay maaya waa lagu daalaa kaliya balcad iyo jowhar shabaab ayaa laga sheegayaa anagana waxaan joognaa 53 kilomitir degmada ka go'onahay walaal waad mahadsan tahay adiga iyo Dhaxal TV waan salaamayaa iyo ummadda Soomaaliyeed iyo waxa waaye dhibaatooyin badan iska jira waana dhawahay waana mahadsantiin dhibaatooyinka jira maxaad ka xusi kartaa hal iyo labo والله deegaan oo qawaariij ay awood ku leedahay waayo oo dhibaato badan ay ka geystaan ay ku dhoomaaleystaan mararka qaar deegaanka waliba waxa ugu daran dhulka hadda ay haystaan ugu daran waa dhulka miyiga ah ee duurka ah oo hawdka oo galbeedka Hirshabelle marka falilahi alhamdu wax badan waan ka saarnay anagoona dawladda Soomaaliya ugu mahad celinayna dawladda federaalka laakiin state-kii Hirshabelle wax gacanana kama helin gacanana ma siinan inta badan laakiin dawladda federaalka wax badan ay naga caawisay haddana ciidankii wuu joogaa deegaankii dagaalkay sida ugu jiraan wax garab iyo gaashaan ma helaan oo waxaana horkaca rag hadda maasha Allah aan meesha ka xusi karo waxa kamid ah ninka la yiraahdo gudoomiyaha degmada Gamboole Fooriyow iyo rag kale oo hadda ciidanka hoosaraakiidana way joogaan ragii kale oo meesha ugu fiicnaan xilka waaba laga qaaday oo aniga kowka ah iyo gudoomiyaha ku xigeenka degmada Gamboole marka alxamdulillah deegaanka sidiisa kala shaqada way socotaa ciidankii howlgalkooda ilaa iyo Beledoogle iyo meesha la yiraahdo Jowhar wax u dhaxeeyo oo hadda shabaab joogaan ma jiraan si nabad ah cid kasta taagi karta waa gartay warar aan helayno waxay leeyihiin xilka qaadistiina waxay ka dambeysay kadib howlgalladiina Al-Shabaab wararkaasi maxaa ka jira wararkaasni wax badan ayaa horta dadka Soomaaliyeed haday wax maqlaan si kasta u fasirtaan ma fahanti waa gartay marka waxa waa ka jiraan Hirshabelle anaga shaqadii dadka anaga oo qoryaha wato ciidanka ah oo yani waxay ku tilmaameen dad si kala u abaabulan ma fahanti anagana geelana soo gadanay ariga soo gadanay lo'da soo gadanay qoryaana ku iibsanay rasaasaan ku gadanay tasiilaadkii ciidanka u baahnay oo dhan waxaan ka dhignay wax dheefkaayni ciyaalkayna ka soo tagnay dhaxanaan jiifnay duurkaasaan joognaa haduu alla ku rooyahay cid hadda waxa Soomaaliya macnaha hadda walaalka waxba ku tari karin waxba ha u dhimin marka dhibaatooyina noola geystay anagoo sida dhaxan u jiifno oo hantidayni iyo naftayni ku baabi'inay ribaadkaas jihaadka ku jirno ayaa waliba waxa noogala daray in nala caburiyo oo nala dhibaatay walaalkii ma garatay waayo cidda dhibtaas ka tabanaysaan ciddaas dhibaatada ka tabanaysaan waayo adinkoo jihaad xaq ku jira idin dhibaatayso oo aad leedahay waan dhibaateen wallahi ragga ugu horeeyo dhibaatada noo geystay waa ragga taliska joogo Hirshabelle waliba xataa taliyaha madaxtooyada Nilida Cabdirashiid ayaa kow ka ah waxa lagu leeyahay howlgal markaad sameynayso isoo wac aniga howlgal markaad sameynayso isoo wac
ciidanka waa awaamir yani guud laakiin nin deegaan ah oo dawlad mashaaric ka qaadan oo tasiilaad siin oo markaneeca aan loo keenin xeer ciidan oo lagu ogyahay aysan jirin ee duurkaas jooga area Gamboole jooga area meel ilaahda maxay ahayd Geed Cadlow Jariirow ilaa Carmooley ilaa iyo Jameeco Daar es Salaam deegaanadaas ku kala sugan yihiin ciidanka ilaa iyo Kabharag alxamdulillah rabbil caalamiin taas fadliga ilaahay ayaa ku sugnaatay oo anaga aan meesha ku gaarnay ma garatay laakiin inaan qof uga amar qaadano deegaankayna waxayna la noqon waxa uu qaadan way ah oo waliba xataa shabaab hadda soo disho oo yani nagula dhibaatay dawladda abaalmarin nasiisay Hirshabeellana ay ka xanaaqday oo tiri macquul ma aha nimankan waaba niman yani shabaab raba inay suuliyaan anagan raalli kama nihin macna saas aan u garanay macna saas aan u fahanay dagaalkii al-shabaab kula jirteen ayay madaxda Hirshabeelle ka soo jeedaan dabcan sidaas aan u fahmay hadalkaaga dabcan way muuqataaba sababtoo ah markii iskooyska gololey meesha leedahay balcad iyo jawhar u dhaxaysa inay shabaab joogaan annagana aan ka howlgalayno 3 kilomitir meel u jirta degmadii Gamboole ilaa iyo degmada Jawhar 3 kilomitir ay su jiraan qiyaas ahaan laakiin saas ay tahay balcad iyo Jawhar dhexdooda shabaab ayaa laga sheegayaa annagana waxaan joognaa 3 kilomitir degmada ka go'onahay inta Daar es Salaam dhowr iyo 30 kilomitir u jirta meesha leedahay degmada Jawhar ama ma haday aan iraahda kiliga Shiinaha Jameeca Degiirle Buurane area soo dhan ciidanka inay joogo ilaa loogu yimaado meesha leedahay maxay ahayd Garsaalo ma fahanti waa garta marka waxa lagu leeyahay inta halkaan shabaab joogo halkaan marka anaga deegaankayna waa noo xor dawladda waxaan yani inaga hor joogtaa inaan shabaab cirib tirnay ka hor joogtaa Hirshabeellana macruuf dhaqanadaas marar badan ay soo noqdeen aniga qaasatan shakhsiyan waxa la igu qabsaday waxay ahayd nin shabaab oo amiir aan soo dilnay miidiyahay ku jirtaa nin la Korneyl Cismaan Barriya warka haya waad weydiin kartaa cid kasta waa la wareysan karaa dawladda federaalka madaxtooyada way og tahay waxaan ugu qabsaday nin shabaab isa soo dishan anagoona ogeyn waa gartay oo howlgalka shabaabka lagu dilayo in aad markii qaadaysaan aad wargelisaan madaxtooyada ku khasbay madaxtooyada inta badan waxay adeegsataa waxyaabo yani oo yani caburin ah oo dictatoriyad ah waliba xataa booliiska Hirshabeelle ma shaqeeya militariga Soomaaliya kama shaqeeya meesha niman daraawiish leeyahay ilaa dawladda hoose ka shaqeeya macaawisleyda deegaanka awoodooda ay ku joogaan way qawaaridna iskaga celiyaan anagana cidna dhibaato kuma nihin dawladda Soomaaliya kamidaan nahay taliyadooda waa og yahay taliyii ka horreyn waa og yahay ilaa iyo yaaqbir weyn iyo balad aamin iyo Gamboole ilaa Goomaale meel ilaahda shawle mareer inta bari cashir deegaanadaas oo dhan oo yani koonfur galbeed ilaa Hirshabeelle ciidanka gaal jecel ama ciidanka deegaanka ee gaal jecel ayaa mar walba ka howlgala ayagoo qof tasiilaad weydiin ayagoo qof hub weydiin ayagoo hal baalood qof aan siinin marar badan waa dhacdaa inay macnaha waxyaalo xoogaa yar ay soo gaaraan sida danab ay soo gaarsiisa laakiin sida boqolkiiba 2015 ilaa 2016 la aasaasay ciidanka macaawisleyda deegaanka oo leega ilaa bari weyn jira kafeer lagu aasaasay rag saraakiisha asaas ilaahay oo naxariista maanta way geeriyoodeen cid yani hadda maanta kulli ehelkooda ay ka geeriyoodeen ma ahani iskama goorin dawladda Soomaaliyeed waxaa jirtay toddobaadkan in uu si weyn u hadlay gudoomiyaha degmada Gamboole Maxamed Fooriyow oo uu sheegay dhibaatooyin haysta kadibna xilkii baa laga qaaday sidee baad u aragtaan dhacdooyinka noocaas oo kale ah Maxamed wada gudoomiyaha degmada Gamboole in hadda xil laga qaado marka laakiin nin la yiraahdo gudoomiyaha ku xigeenka ayaa xil laga qaaday walaalkay Maxamed Cismaan asagana waxa xilka looga qaaday maxad qawaarij ula dagaashaa maxad deegaankaada u dhistaa asaga wuxuu ka soo jeedaa liidaha meesha la Geed Cadlow deegaankiisa u dhistay deegaankiisa horumar ka sameeyay markastana cid allaale cidii Hirshabeelle gacantooda ayaga ka baxsan waa team heshiis way group way جروب كشين قار قلبيت كحساريهن قارن وحساريهن بري كل قلنا على جود لا وهستجان وميل يعني كتادر ولا الكي معنو حتى رنت كوشة وكتادر معنا وكلام كحسابي كرمله سند iyo wax dheer koor waxa jirtay in aad soo disheen nin kamida kooxda al-shabaab oo horjoogay ahaa la idinku abyaal mariyay gaadiid iyo sidoo kale lacag gaaraysa cadadkeeda $4,000 xogtaas saxmiya maxaa khasbay in aad dalka ka baxdo adigu laftirkaaga dalka inaan ka baxo horta yani wax badan aan qasbay
waayo aniga hirshabelle culays isaartay culayskaas rag isaareen rag siyaasiyiin waaye rag madax waaye rag mas'uuliyiin waaye ballantaasna waxaa qaaday taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo madaxweynaha qaranka ayaa ballantaas qaaday Dr. Xasan Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha ballantaas ay qaadeen anagana ballantii waan fulinay ballantan waa noolu fuli sababta aad ugu tagtay dawladda federaalka anagoo joogno ayaan ugu qabsaday faanta anagoo joogno anagana ballantii naga qaaday Cornel Cusmaan Beere ayaa ballantaas naga qaaday dawladda federaalka way ogaad in ugaarsi aan sameeyno ugaarsi badanaas ka hor waxaan soo dilnay 3 ilaa 4 rag gaarayo oo amiir ah oo galbeedka hirshabelle ka shaqeynayay oo amiir ahay kulligood waa leedeen kuwii joogay canaasirtahayna waa iska tageen oo hadda waxay jiraan bari aadeen ma fahanti marka walaalo dhibaatada xawaadle iyo macawislada xawaadle lagu haayo anaga ka badan ma hays waayo hadda dibta socoto waxa waaye gaal jecel macawisladiisa weeraan 10 sano ay dhisan tahay iyo hadaysan ka badnaan 10 sano ay dhisan tahay markaan isku soo aruuriyo dhamaan wili dawladda Soomaaliyeed garab toos ah oo sidad banoogi garab toos ah waan kala anahay walaalkay waana mahadsan tahay abaalmarinta nalsiina waan qaadanay dawladda federaalka abaal ugu haynaa hirshabelle waa diiday waan leegu colaadiyay tan leegu colaadiyay maxaday maxaa ka doontay hirshabelle jowhar ay ku egtahay runta markaan ku sheego maxaday kama taliso waa degmada ugu dhow balcad ma geliraada maxaday u dhow kama taliso hirshabelle ma fahanti waa gartay walaalkay marka saasay wax u jiraan dhibaatadana way socotaa oo mid yaani hirshabelle u gaar ah waaya ummadda Soomaaliyeed lama qabto hadii madaxweyne Cali Guudlaabe joogo oo dawladda hirshabelle ay u dhisan tahay shabaab inay baxaan laga yaabay maaya waa lagu daalaa kaliya waayahay ugu dambeyn sideebaad u aragtaa xalka muxuu ku leeyahay adi ahaan adoo soo koobaya walaalkay waa mahadsan tahay horta xalkan waxa waa Ilaahay baa horta xalka haayo Ilaahay subhanahu wa ta'ala in dadka ay u noqdaan dadka siyaasiyiinta ay Ilaahay ka baqaan ay u dhimriyaan ciidankooda oo mar walba ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka macawisleyda ee deegaanka ee ka dagaalama galbeed iyo bari iyo meel kastaba waxaan leeyahay dadkaas ha loo dhimriyo hadii la soo tanaasulin xal ma la gaarayo xalkeedana meeshaas waxa ugu badan oo ku jirta inuu maamulka hirshabelle meesha ka baxa maalintaasna shabaab ay ku dayeen koonfurta Soomaaliya lagu arki maayo runta soo sheegaynaa waana mahadsan tahay wax walba oo waxaan rabaa in aan rabaa laba arrin aan ku daro horta waxaan bogaadinayaa macawisleyda deegaanka sida shaqada u wadaan sida nimanka jooga Degjiir Kafarag ilaa waxay joogaan Culi ilaa waxay joogaan Balad Aamin Ceel Hareeri Boorti Kafarag ay joogaan ragga furinta jooga oo meesha yiraahdo Shawle Mareer intana goobaan le ragga jooga iyo xawaalka Macal Cali waxaan leeyahay waa mahadsantihiin guulaad keenteen ilaa iyo Gambol guulaad ka keenteen Gambol hal nin oo shabaab lagu arki maayo Ilaahay wuu ogyahay laakiin dawladda Soomaaliyeed oo rabto inay tagto ma lahan